qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo munaasabad ballaaran ku qabtay magaalada Burco ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu xisbiga kulmiye ku soo celiyo dhabadii wada lahaanshaha iyo in si xor la isaga dhex tartami karo xisbiga kulmiye. aqoonyahanka dhalinyaradan iyo waayeelkani ayaa taageero xoog leh u muujiyay siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka mid ah aasaasyaashii xisbiga kulmiye. mudana madaxweyne waxa muuqata oo marag Doona in dhismaha xukuumadda oo ku salaysan hanaan guracan oo ka maran xaqsoorkii beelaha walaalaha ah ee dawladnimada Soomaaliland waxa muuqata in dheeli weyni ku yimid habkii wadaagaha iyo sad qaybsigii ku dhisnaa isla markaana aan si indhaadayga aad u burisay deegaankaaga. tusaale ahaan 45% ka mid ah dikrootooyinka la shaaciyay ee aad soo saartay waxaad gaar u magacowday beeshaada waxa iyaduna aan tira lahayn xilalka dikrootooyinka aan la shaacin ee sida qarsoodiga loo howlgeliyay adigoo sidaa ugu tagrifalay qarankii xaqsoorka lagu dhaariyay ayaad haddana shacabkii ku canaananaysa habdhaqanka qabyaaladda markasta oo aad jeediso khudbadaha isku wada midka mudana madaxweyne muddadii 3 sano ahayd ee aad xilka haysay waxay kaaga dhamaadeen kala qaybinta bulshada iyo isculaysiinteeda 3 sanana waxa kaaga dhamaaday boobkii iyo baroortii hooyooyinka iyo la wareegidda wax kasta oo aad u aragto inay wax ka tari karaan ujeedadaada daaran xoolaysiga hodnimada degdega iyo tijaarnimada xilka aad ku doonayso. mudana madaxweyne muddadii aad dalka xukumaysay ganacsatada ka soo jeeda beelihii codka ugu badan ku siiyay gaar ahaanna beesha bariga Burco waxa lagu sameeyay beegsa cadaaweed adiga iyo xukuumaddaadu waxa dagaal qaawan oo qaraar la gasheen shirkadaha ku abtirsada deegaankan. dagaalka ganacsiga beelaysan waxaan u aragnaa inay sababeen nacjiitay iyo damacantiyadeed halku dhigiisuna yahay hunguriwad ma arko 4 diyaaradood oo caalami ah bay xukuumaddii Soomaaliya dalka keentay labadii ay ka wakiilka ahaayeen muwaadiniintii deegaanadan ku abtirsada bariga Burco ka soo jeedeen ilaa maanta way xaniban yihiin. taas bedelkeedana labadii diyaaradood ee wakiilka ka ahaayeen muwaadiniinta beeshaad ka soo jeeda ilaa iyo maanta way shaqaynayaan. hudheelka Hargaisa Kale oo ay muwaadiniin beeshan ku abtirsada ay si sharciga waafaqsan u maalgashadeen isla markaana laba madaxweyne u saxeexeen duhur cad ayaa sidii burcadda xukuumaddu ula wareegtay. madaxweyne dhalinyaradii shaqaalaha ee dawladda ee u soo halgantay sidii aad madaxweynaha u noqon lahayd ee shalay halkaasi lagu bogaadinayay maanta waa la eriyay. taas bedelkeedana waxa la dalcasiyay shaqaalihii dhalinyaradaas la midka ahaa ee cadaystay aflagaadeynta mas'uuliyiintii xukuumadda Soomaaliya. waxaanu leenahay haddii aanu nahay taageerayaashii kulmiye wixii naga maqan haddii aanan helin shirkiisa aan lagu dhawaaqin waa burbur kulmiye haddii xisbigaasna waa afduub. waxaan aad iyo aad u soo dhawaynayaa oo aan ugu baaqayaa xisbigii kulmiye hore meelay joogaanba inay dhexda xidhaan inay u diyaargaroobaan inay wax iska celiyaan inay u diyaargaroobaan inaanay odhanin col hortii jabay oo aanay inan yaroo maanta soo fadhiistay marnaba loo niyad jabin miyaanu niyad jabnaa. madaxweyne waxaan kaaga digayaa inaad noqoto abaalaawihii qarnigan waayo qarni kastaa wuxuu leeyahay nin ku suntan abaalla'aanta. maxamuud xaashi cabdi waa nin aad garanayso wixii uu taray iyo wixii uu xisbiga taray iyo wixii adiga ku taray iyo wuxuu qaranka tarayba adiga ayaa nooga xogogaalsan. ma aha ninay taariikhdu dafiri karto ma ahana nin maanta la odhan karo xisbigii ayuu dabadda ka joogaa. horta waxaannu kuu sheegaynaa xisbiga cidina kaaga tegi mayso. beelweynta halkan fadhida ee xisbiga kulmiye tacabka gashatay ee hantidiisa lihi waxay kuu tirinaysaa inaad dhac fara badan ka haysid. marka hore waxaannu ahayn iyadoo aad dhacii beertii jenaraal cismaan dacas aad haysid ayaannu nidhi liqa oo doorta waannu ku doorannay. waxaad ku dartay hudheelkii suldaan siciid iyo ganacsada jaawac karaaciin oo isagana aad xoog ku qaaday iyo reernimo. waxaa kaloo kugu maqan diyaaradihii daala airline iyo alcarabiya labadaasina way kugu maqan yihiin.
waxaa kaloo kugu maqan hubkii aanu kugu wareejinay ee beesha bahood oo aad dhinacii kale ee dhigooda ahaa lacagtii u tirisay iyadoo aan weli aanu gacantaada soo gelin waxaannu kaa rabnaa hubkii aad ku ballan qaaday dhowrka goor ee aanad waxa weeyaan weli lagaa haynin rag waa baro rabbina u golreeb baliya khayrkeed wax baktiyey baddu waa tuftaa baxadaale muuse uu habar jecel ku soo tuftay ninka madaxweyne muuse biixina mid baan idhi waxaad bixisay hadallada aad bixisay ee laga hayo ee maanta baalka madow ku gali doona waa kulmiyii hore iyo kulmiyaha dambe waxay Soomaalidu ku maamaahdaa waa la doogayay la dacaroon madaxweyne waxaan ku yiri muusow waa la doogayay la dacaroon adduunku waa iskurayaa mahad cali goodir Eryal TV Burco anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir